kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni qubanaha VOA oo aan toddobaadkiiba mar idin soo gudbino. barnaamijkeena oo markasta aad ka daawataan website-keena voasomali.com waxaan qodobada toddobaadka aan idinkugu hayna kamid ah. dawladda Sacuudiga oo dalkeeda ka saaraysa shaqaalaha ajnabiga ah ee suuqa madow ku shaqeysta kadib markii uu dhamaaday cafis kooban oo uu boqorku u fidiyay shaqaalahaasi si ay u hagaajiyaan waraaqaha shaqooyinkooda. Kenya oo bilowday qorshe ay ku kordhinayso tirada diyuuradaheeda rakaabka qaada isla markaana ay ku ballaarinayso garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi. If we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. waa laba filim oo cusub oo ka hadlaya Julian Assange oo ah ninka aasaasay bogga WikiLeaks ee faafiya sirta dawladda Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan. dawladda Sacuudiga ayaa bilowday inay dalkeeda ka eriso shaqaalaha ajaanibka ah ee sida sharci darrada ah gudaha dalkaasi uga shaqeeya kadib markii uu dhamaaday cafis uu boqorku u fidiyay shaqaalahaasi si ay u hagaajiyaan waraaqaha shaqooyinkooda. talaabadan ayay dawladda Sacuudigu ku doonaysaa inay ku yareyso shaqaalaha lacagta yar uga dhex shaqeysta dalkaasi sidoo kalena ay kor ugu qaado heerka shaqo ee wadanka Sacuudiga. Ibrahim Dandurey ayaa warbixintan inoo haya. wax ka qabashada dawladda Sacuudiga ee dadka sharci la'aanta dalkaasi kaga shaqeysta ayaa bilaabatay bilowgii bishan. afayeenka wasiirka arrimaha gudaha Major General Mansour Tarki oo arrintaasi shaaciyay ayaa sheegay laga bilaabo Isniintii 4 bisha November ayaa waxaanu qaadnay olole amni oo dhammaystiran oo boqortooyada oo dhani aan ka samayn doono. arrintani waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagu saxayo xadgudubyada dhinaca deganaanshaha iyo shaqada annagu oo doonayna inaan arrintani xididada u siibno. ku-xigeenka wasiirka shaqaalaha Mifrij al-Haqbani ayaa waxa uu isla sheegay in dadka ajaanibta ee Sacuudiga ku nool la siiyay 7 bilood oo ay warqadahooda shaqada ay ku samaystaan. dalka Sacuudiga oo ah dalka ugu soo saarista badan ayaa dawladdiisu waxa ay ballan qaaday in xoog lagu geli doono goobaha shaqada, suuqyada iyo deegaanada dadku ay ku nool yihiin si loo qabqabto dadka ajaanibta ah ee viisayaashoodu ay dhacsan yihiin ee aan u shaqaynin sharikadihii wakiilka ka ahaa ee ay dalka ku yimaadeen. koox dadka ah oo lulaya baasaboorada ayaa Isniintii waxay isugu soo urureen xarunta masaafurinta ee caasimadda dalkaasi iyagoo si isxilqaan u doonaya inay dalalkoodii dib ugu noqdaan. Jamaal Ciid waa shaqaale dalka Masar ka yimid. warqadii safarka ayaan ka soo samaystay safaaraddeeda waxaana doonayaa inaan dalkayga ku noqdo intaas uunba doonaya. dad goobjooga ayaa sheegay in deegaanada ay ku nool yihiin kana shaqeeyaan dadka ajaanibta ahi ay Isniintii faaruq ahaayeen iyadoo meelo kalena lagu arkayay baabuurta ciidanka booliiska oo hoonka ka dhawaajinaya. injineer Khalid Salaamah ayaa waxa uu ka cawday in shaqaalaha aan la siinin waqti ku filan si warqadahooda shaqada ay u hagaajistaan arrintaas oo uu sheegay in bilo aan lagu dhammayn karaynin ee sanado ay qaadanayso. فاحنا عاوزين تسهيلات عاوزين مده أنا أعتقد أن المدة اللي فاتت دي غير كافية. waxaan u malaynayaa in xilligii la qabtay ee hadda dhamaaday aanu ku filayn. waxay ila tahay inaan u baahannahay ugu yaraan 2 sano si qof walba uu wax u hagaajisto isla markaasna loo dhammeeyo suuqa madow ee ka ganacsiga viisooyinka. dhaqangelinta sharciyada viisuhu waa dadaal kaleeto oo lagu soo afjarayo suuqa madow ee viisaha ee lagu keeno shaqaale jaban. waxaa kale uu soo afjarayaa shaqaalaha ajaanibta ah isla markaasna uu suuqa u banaynayaa muwaadiniinta Sacuudiga. heerka shaqo la'aanta rasmiga ee dalka Sacuudiga oo ah 12% ayaan ku jirin tiro badan oo muwaadiniinta dalkaasi ah oo iyagu sheegay inaanay shaqo raadin. in la kordhiyo shaqooyinka gaarka loo leeyahay waddan ay dadka Sacuudiga iyo badankood dawladda ay u shaqeeyaan ajaanibtuna ay shirkadaha gaarka u shaqeeyaan ayaa waxa arrintaasi caqabad adag ay ku noqon doontaa boqortooyada. Kenya ayaa bilowday qorshe ay ku kordhinayso tirada diyuuradaheeda rakaabka qaada isla markaana ay ku ballaarinayso garoomadeeda diyuuradaha.
waana isku day ay ku doonaysa inay sare ugu qaado xiriirka ganacsi ee ay dalalka gobolka iyo dunidaba la leedahay. garoonka diyaaradaha ay ugu weyn dalkaasi ee ku yaala magaalada Nairobi, Jomo Kenyatta, oo hadda ay adeegsadaan in ka badan 6 milyan oo rakaab ah sanadkiiba, ayaa weli ka soo kabanaya dab weyn oo bishii Agoosto ee sanadkan baabi'iyay qaybta rakaabka garoonka ka degaya ay ka galaan. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan noo haya. dhismo cusub ayaa ka socda qaybta garoonka weyn ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan qaybtii uu bishii August burburiyay dab weyn oo ka kacay. mas-uuliyiinta garoomada Kenya iyo mas-uuliyiinta shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa si wadajir u wada qorshe ku aadan ballaarinta garoonkaasi iyadoo lagu kordhinayo jid cusub oo ay diyaaradaha ka soo degaan kana duulaan, isla markaana la kordhinayo tirada diyaaradaha shirkadda KQ. tallaabadaas oo ay dawladda Kenya ku doonayso inay ku xoojiso xiriirkeeda dibadda ee dhinaca ganacsiga. isagoo xariga ka jirayay diyaarad cusub oo nooceedu yahay Boeing 77300ER oo ay soo iibsatay shirkadda Kenya Airways, ayuu madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dhismaha cusub ee ka socda airportka. Barely 3 months ago, I visited this airport, which is the home of Kenya Airways. ku dhawaad 3 bilood muddo haatan laga joogo buu yiri waxaan booqasho ku imid airportkan oo ah guriga shirkadda Kenya Airways. qaybta dadka soo degaya looga adeego dab ayaa baabiyay, waxayna u muuqatay meel bas beeshay. laakiin xafladan aan maanta joogo ayaa dhacaysa xilli aan xamaasadeysanahay buu yiri. xamaasadaas oo aan ku iman buu yiri oo kaliya in airportku uu u shaqaynayo si ka dardar badan sidii uu ahaa gubashada ka hor, laakiin waxa ugu wacan buu yiri dabkaasi dartiis dhismaha qayb cusub oo ka casirsan tii hore ayaa noo socota. mas-uuliyiinta garoonka ayaa dhowaan ka helay lacag gaaraysa $653 milyan oo dollar, 3 hay'adood oo deymaha bixiya si loogu dhiso lacagtaasi terminaalka cusub iyo jidka labaad ee airportka loo dhisayo. terminaalkan cusub iyo dariiqa cusub ee diyaaradaha ay isticmaali doonaan ayaa awood dheeriya u siin doona airportka inuu u adeego ku dhawaad 40 milyan oo rakaaba. And we endeavor to use every opportunity to move the agenda of national transformation. waa naga go'an tahay buu yiri madaxweyne Kenyatta mar kale in garoonku uu gudan doono waajibaadka loo igmado ee ah inuu noqdo halka isku xira bariga iyo bartamaha Afrika. shirkadda KQ ayaa inkastoo ay xariga ka jirtay dayuuradan cusub ee weyn ee rakaabka, haddana dayuuradaasi ayaan weli howlgelin. shirkaddu waxay u sababaysay arrintaasi dib u dhacyo ku yimid hawsha ballaarinta garoonka. dayuuradaha u shaqeeya shirkadda Kenya Airways oo qayb ahaan ay leeyihiin shirkadda Air France iyo KLM ayaa waxay qorsheynayaan in dayuuradaheeda baaxadooda la gaarsiiyo 80 qiyaasaha dayuuradaha 5 sano ee soo socota. dayuuradan cusub ayaa qadka duulimaadkeedu waxa uu noqon doonaa Nairobi Guangzhou. tallaabadaas oo Kenyatta uu sheegay inuu sare ugu qaadi doono xiriirka ganacsiga iyo cilaaqaadka Kenya iyo Shiinaha ka dhaxeeya. It paves the way. arrintan waxay war wanaagsan u tahay buu yiri dalkeena iyo dhabtii gobolka oo dhan. waa mid ugu galxaaraysa buu yiri shirkaddan inay dhidibada u aasto ganacsigeena iyo xiriirka aan la leenahay dunida. waxayna keeni doontaa ganacsiga oo kobca, dalxiiska oo bata iyo xiriiro kale oo dhex mara qaybaha kala duwan ee dunida. sarkaalka ugu sarreeya shirkadda KQ ayaa sheegay in qorshaha ay dayuurad nooca Dreamliner ah oo nambarkeedu yahay 787 ay ugu soo darayaan raxanta dayuuradahooda uu goor horeba sii bilowday. waxaa kaloo uu sheegay in tiro ka mid ah dayuuradaha ay hadda isticmaasho shirkadda KQ inay shaqagabayaan si ay dayuuradaha cusub ugu sii gogol xaaraan buu yiri. haatan dayuuradaha shirkadda Kenya Airways hoos yimaada waxay u duulaan ilaa iyo 61 jiho, laakiin waxaa shirkadda qorshaha ugu jira inay gaarsiiso duulimaadkeeda ugu yaraan 117 goobood oo dunida oo dhan ah. laba filim oo cusub oo ka hadlaya ninka aasaasay bogga WikiLeaks ee faafiya sirta dawladda Mareykanka ayaa soo bandhigay taariikhda Julian Assange. labadan filim ayaa siyaabo kala duwan u eegaya dooda ka taagan in la xakameeyo faafinta macluumaadka sirta ah iyo isbeddelka ku yimid qaabka ay dadku wararka u helaan iyadoo la adeegsanayo internetka. wariyaha VOA-da Penelope Bulu ayaa arintani warbixin ka diyaarisay. Maxamuud Ibrahim Cali ayaa inoo soo koobaya. A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters. 12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
sanadkii 2010 in ka badan 90,000 oo qoraallo sir ah oo ay leeyihiin militariga Mareykanka ayaa lagu daabacay bog uu leeyahay Julius Assange oo u dhashay Australia. Assange ayaa laga sameeyay filim cusub oo la mabaxay The Fifth Estate. If we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. Filimkan ayaa ka hadlaya taariikh nololeedka Assange ka hor inta aanu faafin sirta Mareykanka. Filimkan ayaa sawir ka bixinaya sida uu yaraantiisu ugu xildheeraa kombiyuutarada, isla markaana uu ahaa qof maskax badan iyo faafinta macluumaadka sirta oo ay isku diideen saaxiibkiisa Daniel Berg oo u arkay inay halis ku jirto. These are human beings, Julian. And their lives are at stake. What about the lives of the soldiers and the civilians involved in these conflicts? Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire. This is information the world needs to know. Soo saaraha filimkan Bill Condon ayaa ka hadlay mas'uuliyadda faafinta sirta. internetka waxaa jira waxyaabo run ah iyo waxyaabo been abuur ah. Su'aashu waxay tahay yaa inaga caawin kara sidii aan u kala saari lahayn runta iyo beenta, taasoo ahayd shaqada saxaafadda caadiga ah. Laakiin waxaa hadda soo baxay nooc cusub oo saxaafadda ah oo ay dadweynuhu ay maamulaan iyaga oo macluumaad sir ah isu gudbinaya. Arrintan ayaa waxaa aad u fududeeyay internetka oo ay dadweynuhu arrintaas oo kale u adeegsadaan. Inkastoo uu Bill Condon uu sheegay in sheekada filimka isku dheelitiran tahay, haddana waxaa daawadayaasha sawir qaldan ka siinaya Assange oo markii filimkii uu daawaday cambaareeyay. Dadka filimaanta faaleeya ayaa arrintaas ku raacay. Dhinaca kale, Alex Gibney ayaa isaguna filimka ka sameeyay Assange iyo askarigii Mareykanka ah ee sirta ciidanka gudbiyay Bradley Manning. The Army has detained a U.S. soldier in connection with the leak of this classified video. Markaan kolba u fiirsado, waxaan isweydiinayaa waa maxay sababta aanu Bradley Manning sheekadan uga dhex muuqan. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa Manning inuu door muhiim ah ciyaaray sida Julian Assange oo kale. Gibney ayaa filimka ku soo bandhigay Manning iyo sida uu ugu yaaban yahay macluumaadka uu helay. Waxa kale oo uu soo bandhigay saxafiga ka tirsan wargeyska The Guardian, Nick Davis, oo sheekada ka qayb qaatay. There was material which could get people hurt. Julian said, if an Afghan civilian helps occupying forces, he deserves to die. Knocking on the door, Julian, come on, man. Qoraal uu ugu soo gudbiyay VOA-da ayaa Mark Davis waxa uu ku xusay in Julius Assange uu ahaa cidda magac badan ka reebay warbixinta sirta ah ee la helay si aanay waxyeelo u soo gaarin. Waxaanu sheegay in qof kasta markii la soo daabacay macluumaadka uu aad ugu dhuur sugayay, laakiin Assange ayaa go'aansaday inuu ka reebo 10,000 oo magac waraaqaha sirta ah. Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. Labada filin ayaa isku raacsan in Julius Assange uu wax badan ka bedelay qaabka ay macluumaadka dadweynaha u soo gaaraan. It's just begun. cimilada dunida ayaa sii kululaanaysa, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday daraasad dhowaan ka soo baxday xafiiska dalka Mareykanka u qaabilsan daraasaadka cimilada. Waxaana daraasadu ay xustay in 2012 uu sare u kacay kaarboonka hawada lagu sii daayo. Waxaa kale oo sare u kacay biyaha badda. Wariyaha VOA-da Rosanna Sikirble ayaa warbixintan ku eegaysa diyaarad casri ah oo shaybaar ahaan hawada ugu shaqeynaysa. Xuseen Barre ayaa faahfaahintan inoo haya. Diyaaradan casriga ah ayaa dib u habeyn lagu sameeyay si ay sayniska ula jaanqaado. Waxaana faahfaahin ka bixinaya qaabka ay u shaqeynayso iyo waxtarkeeda madaxa xafiiska daraasaadka cimilada iyo badaha ee Mareykanka Master Al Cooper. Bulshada ayaa u baahan diyaarad noocan oo kale ah. Sababtoo ah waxay gaari kartaa hawada sare oo warbixin laga heli karo. Sidoo kale waxay ku wareegaysaa adduunka oo cilmi baaris caalami ah ka samayn karto. Diyaaradan oo lagu magacaabo Hyper ayaa lagu tilmaamaa inay tahay shaybaarka duula. Waxaanay duulimaad xiriir ah ku samayn kartaa ilaa iyo 11,000 oo kiiloomitir.
waxay dusha kala soconaysaa duufaanada waxay kale oo ay cabiraysaa kiimikada wasakhda ah ee hawada ku jirta iyada oo ka hortag samaynaysa si wax looga qabto sida uu marka la sharaxayo madaxa barnaamijkan Al Cooper. waxaa muhiim ah sawirka ayna siinayso iyadoo isla goobta ay joogto nagu siinaysa cabir sax ah waana cabir muhiim ah mana jirto si ka fiican oo qiyaastaas loo heli lahaa sababtoo ah meelo badan ayay gaari kartaa. qalabka shaybaadhka ah ee diyaaradda saaran waxaa ka mid ah qalab muhiim ah oo awood u siinaya saynisyahanadu inay ku ogaadaan heerkulka cimilada iyada oo hawada sare lagu tuurayo sida uu faahfaahinayo Nick Potts oo ka tirsan saynisyahanada hawshani gacanta ku haya. marka qalabkan la soo tuuro waxa uu qiyaas ka qaadaya hawada waxaana ku xiran qalab u fududeynaya saynisyahanada diyaaradda saaran inay ku ogaadaan sida ay tahay hawada uu sii dhex marayo oo ay fikrad ka helaan. injineerka saaran diyaaradda ayaa dhinaca kombiyuutarka amar ku siinaya dhinaca dambe ee diyaaradda in laga sii daayo qalabkan oo loo yaqaan drop zones. inta badan waxaa loo adeegsadaa duufaanada waxaanan ku dul wareegnaa goobta duufaantu ka dhacayso annaga oo ku tuurna qalabkan si aan wax uga ogaano. mashruucan ayaa waxaa ku baxday $81 milyan. Nick Potts ayaa sheegaya in macluumaadka ay ururiyaan ay wax badan ka tarayaan sidii looga gaashaaman lahaa duufaanada iyo masiibooyinka dabiiciga taasi oo nolosha dadka badbaadinaysa. mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansanaan jiray dalka Ethiopia ayaa iminka waxa uu tagsiile ka yahay dalkani Mareykanka. Hailo Mergia waxa uu caan ku yahay tumista qalabka kala duwan ee muusikada gaar ahaan qalabka loo yaqaan organka. waxaan uu sanadihii 70-meedii ka mid ahaa kooxihii ugu caansanaan jiray dalkaasi Ethiopia waxaana aad u jecel muusiga uu tumo dadka u dhashay wadankaasi. haddaba warbixintan soo socota ayaanu ku eegaynaa nolosha iyo taariikh faneedka fanaankaasi iyo sababta ku dhalisay inuu dego Mareykanka kuna shaqaysto wadista taksiga. wariyaha VOA-da Deborah Block ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaana inala socodsiinaya Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo. Hailo Mergia waa muusikista aad looga yaqaan dalka Ethiopia waxaana uu iminka degan yahay caasimadda Mareykanka isagoo taksi wada waxaana inta uu sugaya rakaabka raacaya uu baabuurkiisa ku tumaa qalabkiisa isagoo sheegay inay la yaabaan dadka reer Ethiopia markay arkaan. markaan magacayga u sheego ee ay xasuustaan ayay aad u yaabaan waxayna ii sheegaan inay xiiseeyaan muusikada aan tumo waxaana ii weydiiyaan sababta aan taksi u wado waxaanan u sheegaa inay tahay shaqo islamarkaana ay muhiim tahay inaan shaqaysto. Haile Mergia ayaa yaraantiisii isbaray sida muusikada loo tumo waxaana uu ka tumay baarar badan oo ku yaala Ethiopia isagoo 70-meeyadii ku biiray kooxo waaweyn oo caan ah. waxaan tumi jirnay muusiga casri ah aad ayaana loo jeclaa waqtigaasi. Mergia waxa uu 20 sano ku nool yahay magaaladan Washington waxaana ka soo shaqeeyay shaqooyin kala duwan isagoo iminka wada baabuurta taksiga ee ka shaqeysa garoonka diyaaradaha Washington laakiin weli shacayl badan ayuu u hayaa fanka. waxaan jecelahay inaan tumo heeso originaal oo asal ah gaar ahaan kuwa dhaqanka Ethiopia. Mergia ayaa fanka heesaha Ethiopiaanka wuxuu ku soo kordhiyay tumista qalab kala duwan oo hore loogu tumi jirin heesaha waxaana uu dhowaan dib u soo garaacay album caan oo tumay 1985 arrintan ayaa waxaa gacan ka geystay Brian Shimkvodis oo iska leh shirkad yar oo fanka ka shaqeysa waxaana uu cajaladaasi ku arkay Ethiopia isagoo xiise gaar ah u qaaday waxa uu sheegay inuu markiiba go'aansaday in cajaladan loo baahan yahay in dib loo duubo oo la casriyeeyo waxaanu xiriir la soo sameeyay Hailo Mergia. Haile ayaa aad u yaabay markuu Brian Shimkvodis la soo xiriiray. waxaan weydiiyay cajaladan halkeed ka keentay. Shimkvodis ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inay dad badan ku farxayaan maqalka muusikadan. waxaa jira dad badan oo Ethiopian oo caalamka ku nool oo xasuusan doona dhawaaqa muusikadan islamarkaana jeclaysan doona inay dib u maqlaan iyada oo la casriyeeyay waana mid dareen badan ku abuuraysa dhageystayaasha. Mergia ayaa qabaa in dhallinyaraduna xiisayn doonto iminka. waxaan u turnay si casri ah oo dhagahooda soo jiidanaysa mana jirin waagii hore sidan oo kale. Mergia ayaa ku faraxsan in iminka uu gaari kara dadweyne ka badan intii hore iyadoo heesihiisa cusub loo duubay
siyaabo kala duwan lagana heli kara internetka. waxaa la gaarsiiyey qaaradaha adduunka waxaana yeelaan dukaamada cajaladaha ee badankooda. Meergia oo iminka 67 jir ah ayaa rabaa inuu dib u soo nooleeyo fankiisii isagoo sanadkan safar ku tagaya qaaradda Yurub isaga iyo fanaaniin kale si uu u soo bandhigo muusigiisa cusub. intaasina daawadayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeennii qubanaha VOA ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambana daawadayaal nabadgelyo.